iyadoo 7 bishani ay si rasmi ah u bilaabatay doorashada guud ee dalkani Koonfur Afrika isla markaana ay ku tartamayeen 29 xisbi ayaa waxaa maalintii labaad soconaya tirinta codadkaasi. wararka laga helaya xarunta guud ee magaalada Pretoria ayaa waxa ay sheegayaan in ay ugu cadcad yihiin labada xisbi oo kala ah African National Congress ANC isla markaana uu musharaxa u yahay madaxweynaha iminka talada haya ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma iyo xisbiga Democratic Alliance DA isla markaana ay hogaamiso haweeneyda lagu magacaabo Helen Zille waxaana si weyn ugu horeeya codadka ilaa iminka la tiriyay xisbiga African National Congress ANC 62.20% halka xisbiga DA na uu haysto 22.19%. xisbiga kaalinta saddexaad ku jira ayaa ah Economic Freedom Fighters EFF oo uu musharaxa u yahay isla markaana uu hogaamiyo wiilka da'da yar Julius Malema waana markii ugu horeysay uu Malema isu soo taago xilka madaxtinimo ee dalkani Koonfur Afrika waxaana xisbigiisa la aasaasay 17 bishii 8 2013. natiijada guud ee doorashada ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo maalmaha fooda inagu soo haya. 9 gobol ee ka kooban yahay dalka ayaan wax rabshada ka dhicin inta ay doorashooyinka soconayeen. xasan kaafi maxamed shire telefishinka caalamiga Home Cable magaalada Cape Town.